Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel waliba ood ku sugan tihiin ku soo dhowaada Hogan 24 Media. Barnaamijkeena maanta waxaan idinkugu soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan magaalada Qordooba ee ku taalla waddanka Spain. Waxaan idin soo gudbinayaa anigoo ah Cabdiwali Mucallim Alto. Magaalada Qordooba waa magaalo ku taalla koonfurta dalka Spain, waana magaalo dhacda goob webi ah. magaaladani taariikhda islaamka ee dadka muslimiinta meel weyn ayay kaga taallaa. Yurubna waxay u ahayd magaalo hogaamin jirta qarniyo badan, hadday noqoto dhinaca aqoonta, ganacsiga iyo awoodaba. waxayna magaalo madax u ahayd muddo dheer. dowladdii Umayyawiyiinta ee halkaasi ka aasaasantay markii khulafadii reer Bani Umayya laga qabsaday dunida muslimiinta inteeda kale ee ay la wareegeen Cabbaasiyiintu. haddaynu taariikhda magaaladani si kooban uga wararno, waxaa aasaasay Rumaaniyiinta 206 sano ka hor taariikhdii miilaadiga Nabi Ciise calayhi salaatu wasalaam, waxaana furay Andalus Daariq ibn Siyaad sanadkii 92 ee hijriga, kuna beegneed 711 miilaadiga, xilligii uu xilka hayay Waliid ibnu Cabdimaalik ibnu Marwaan ee dowladdii Umayyawiyiinta. xilligii ay gacanta ku hayeen Umayyawiyiintu, Andalus waxay gaadhay magaalada Qordooba horumar aad u sarraysa, xilligaas oo ay Yurub ku nooleed mugdi iyo dibudhac iyo jaahilnimo baahday. markii ay burburtay oo ay meesha ka baxday dowladdii Umayyawiyiinta, waxaa Andalus xukunkeeda la wareegay ninka lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan al-Daakhili, oo lagu naanaysi jiray galeerkii Quraysh, sannaddii 138 ee taariikhda hijriga. waxayna magaalada Qordooba gaartay horumar aad u weyn. boqorro badan ayaa carruurtooda u soo diri jiray magaalada Qordooba si ay dugsiyada halkaasi ka furan cilmiga uga soo bartaan, waxaana ka mid ahaa boqortooyada Faransiiska. wakhtigaas ayaa noqday meel ay ku kulmaan dhaqamo kala duwan sida muslimiin, yuhuud iyo nasaaro dhinac ah, carab, barbar, quudiyiin iyo faranji dhinac ah. halkaas baa waxaa ka dhashay xadaarado horumar weyn samaysay oo Andalus ka socday gobollada kale ee Islaamka. halka manhaj ee loo noqonayay ayaa ahaa shareecada Islaamka. nasaare iyo yuhuudna nabad ayay ku noolaayeen muslimiinta hoostooda. sharcigooda ayay isku xukumayeen, balse gunnooyin ayaa laga qaadi jiray. Andalus ayaa noqotay meel loo haqaltaago aqoonta iyo horumarka yaalay goor Yurubta kale jahli iyo dibudhac iyo mugdi ay ku jireen. magaalada Qordooba ayaa noqotay meelaha ugu fiican caalamka xagga aqoonta iyo horumarka, iyadoo la tartamaysay Baqdaad, caasimaddii dowladda Cabbaasiyiinta, iyo magaalada Qustantiniya ee maanta loo yaqaano Istanbul. magaalada Qordooba culimo badan oo caan ah ayaa ka soo baxay sida Imaamul Qurdubi, Ibnu Xazaam iyo kuwo kale ee taariikhda iyo tafaasiirta wax ka qoray. dhinaca sayniska, cilmiga falaga, xisaabaha, qalliinka aad ayay caan ugu ahayd Andalus, waxaana ka soo baxay rag ilaa ay hadda lagu tiirsan yahay aqoontii ay ku soo kordhiyeen adduunkan. kadib burburkii, Andalus waxay u qaybsantay imaarado ama dowlado ama maamullo yaryar oo ku caanbaxay magaca At-Tawaa'if. wakhtigaas waxaa lagu tiriyaa wakhtigii ugu murugsanaa ee soo maray Andalus. waa markii 26 dowladood ay u qaybsantay dowladdii Andalus. magaalo waliba amiirkeeda ama boqorkeeda ayaa ka talinayay, waxayna lahayd xaakin u gaar ah. waxaa ka jiray dhexdooda dagaallo, kii xoog weynaa ayaa kan yar cunayay. muslimiinta magaalada Qordooba waxay kaga tageen raad xadaaradeed oo qoto dheer, waxayna ka dhiseen masaajidyo, qasriyo, waddooyin iyo guryo intuba ay maanta ka muuqdaan magaalada Qordooba. waxaana ugu caansan masaajidka Qordooba ku yaalla ee loo beddelay kiniisadda, laguna magacaabo masaajidka katedraalka. dhismahaas waxa uu asalkii ahaan jiray masaajid ay dhiseen dowladdii Islaamka ee Andalus ka hor inta uusan kiniisad katedraal ah noqonin qarnigii 15aad. waxaana sanadkii 2014 boqolaal kun oo qof ay saxiixeen dacwad ah in dhismaha caanka ee katedraalka laga dhigo kiniisad Katolik ah. dhismahaas oo ay muslimiinta bilaabeen, masiixiyiintana ay dayactireen, weli waxaa ka muuqda astaamaha kala duwan ee labada diimood. raadad badan oo taariikheed markii Andalus lala wareegay cagta ayaa la mariyey, hase yeeshee maanta Andalus guud ahaan waxaa ka muuqda raadkii muslimiinta kaga tageen oo aad u qiimo badan. masaajidkan muuqaalkiisa ku muuqda lama ogola in lagu tukado, waxaa loo ogol yahay oo keliya dadka dalxiisayaasha ah, waxaana qayb ka mid ah laga dhigay kiniisad. waxaana kuu muuqanaya gidaaradiisa oo aayadaha Qur'aanka Kariimka ay ku xardhan yihiin.
waxaa halkaa inoogu eeg warbixinteennii aan ku eegaynay magaalada Qordooba oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdulle Macallim Alto. haddaba haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad u hesho barnaamijyada cusub. hana hilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.